بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت ودي السلام يا دي هانتي مركز جوجتان سود وهذا أصحابي سود وهذا وقت جويجا هايدين وعنا هذا واي هاي باشي أبقال أو أضي سديتن إيو لبتشر ودلي أنا قبيل ويابكي سديتن إلا وصانو أضي جيرا وحواد لا أيي وحي ودلين أنا قبيل waayahay dhanka kaleeto ciidamada geesiyaasha Puntland dagaalkii maanta waxay ka soo hoyeen guulo waaweyn dagaalkaas oo ay kula jireen kooxda argagixisada Daesh buraha Al-Miskaad soo dhawaada asxaabay waqtiga jooga haydin wacnaa salaam ayaa dhamaantiin baa muuqaalka hadduu ku soo gaaro share ya like intaba ku qabo page kana follow inoo dheh qayb ka nahay dagaalka adduunka oo kula jiro dhalma la'aanta waxaan wadanka ka hirgelinay xaruntii ugu horeysay ee daaweysa dhalma la'aanta ilaa aan u diyaarinay bukaanadeenna adeegga beerista ubadka IVF waxaan nahay xarunta rajada qoyska waayahay haddii aan ku bilaabo oday 82 sano jiro ayaa waxaa lagu dilay deegaanka u dhaxeeyo ceel baraf iyo meesha la yiraahdo xalfooley runtii odaygaasi wuxuu ahaay oday 82 jir ah oo ka soo jeeda beesha xawaadle waxaana dilay maleeshiyaad u dhashay beesha abgaal waxayna ku dileen aana qabiil ayay u dileen ninkaasi odayga ah waa waxa lala yaabo waana wax laga yaqyaqsoodo abgaal ma xishoodo duqooshinka horta ayaga iska dilayay iyo habraha iyo ayaga iska laynayay oo dad waxaasi hadda wax la eemaba ahanba caruurta iyo dumarka iyo dadka birmigeedada waayeelada iyo waxaasay dilaan laakiin waxa weeye abgaal ceeb wax kama dhibtee kulli taba odagaas Allah u naxariistaan leenahay aana qabiil ayay ugu dilay 82 sano jiro waa tira 9aadii ku jira cimrigiisii soo qaatay maanta xilli qaatuma ku jiro ninka balka habaarsanayo oo dhiigiisii naftiisa dusha saaranayo dhalinyarada balka warba nin 9 sano u sii socdo oo cimrigiisii soo liqay ninka aana qabiil ugu dilaya balka warma asaan naga hoog badan naga dhib badan dhibaata dusha saartay 82 jir dusha saartay dambigiisii iyo naftiisii iyo wuxuu lahayba marka waxaan leenahay abgaalow ma xishootaan ilma adeerayaalow xishooda ilma adeerayaalow xishooda war waxaan dagaalkaan iska daayo oo dagaal ma waxa kan waxa aad wadaan dagaal ma ahane si toosoo bareer ah walba xataa u soo aada rag gaskaga dhiciya dhabarka toogasho iyo qof masaafuro iyo oday masaakiin oo gurigiisa iska jooga iyo waxaas baa dilaysaan laakiin wiilasha xawaalda waa taqaanaan meesha joogaan aad oo laay ayaga walba xataa taasaa magac ku heli xogaa idin magac dhaanto oday 82 sano jira dilay ayay dileen taasaa idin magac xogaa wallahi ma aqaan waayahay daantaas ugu gudbo qodobkaasi waxaa maanta dhacay dagaal waxaa maanta la qaaday oo ciidamada Puntland ay qaadeen dagaal ay kula jireen kooxda argagixisada ahay baryahan dambaba maanta runtii buurihii ay ku gabanayeen meeshii horta ugu darneed ugu weyneed saakay ayay ciidamada horta weerareen waa dooxa jacayl meesha la yiraahdo halkaas oo saldhig weyn oo argagixisada ay kula hayeen galabta ayaa la soo afjaray koox isnaybara oo ugu dambeysay oo halkaasi ka dagaalamayay cagta ayaa la mariyay wixii meeshaas ku jiray oo argagixiso ahay wax la dilo iyo wax la qabto waxa la qabtay kuwa ajaanib hatta waa la qabtay meesha waxay ahayd meesha ajaanibta u badan tahay ku jiraan oo ay ku gabadaan ayay ahayd halkani dooxan si la sheegay marka saakay dagaal ay qaadeen ayay waxay ku soo gabagabeeyeen galabta ayay ku soo gabagabeeyeen oo kooxdii argagixisada ahay looga intaal ranooday ayagoo kala cararaya firxadkoodii qaarkood xataa waa kuwana sidaa haddii loo cararayo maxaa idin keenay sidaa haddii loo cararayo waayahay runtii marka waxaan dhihi lahay marka Puntland dagaal ayay ku jiraan oo kooxaha argagixisada ayay kula jiraan aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa reer Puntland in ay guuleystaan guulaha isdaba joogga ah ay ka gaareen kooxdii Daesh ee buraha Al-Miskaad ku dhumaalaysanayay runtii marka waxaa weeye horta dagaalka argagixisada reer Puntland iyo reer Hiiraan qayb ka mid ah oo bariga Hiiraan dadka daga ah iyo reer Puntland waa dad maanta ay ka go'an tahay inay la diriraan ama ay ka ciribtiraan dalkaba kooxahan argagixisada ah runtii marka waxaan leeyahay reer Puntland iyo reer Hiiraan iskaashada
iskaashada waayo maanta ummad kalento ama Soomaali kalento la dirirayso cadowgan argagixisada lama arko waxa la diriraya waa labadiina oo kaliya marka waxaan dhihi lahaa labadiina iskaashada ilma adeerayaalo iskaashada wax badan ayaa idin siyaadaya sababtoo ah kooxahan argagixisada ah dadka la dirirayo ee hortaagan ee xabadda ku wada ayaa tihiin meel kalento xabad qush looga siinayo ma jirto marka waxa weeye kooxaha argagixisada marka cidda la dirirto dadkii la diriraa ayay xoog saaraan xoog marka adinka soo saaraya marka adinkana waa inaad kaashataan oo isbiirsataan waxaan dhihi lahay reer Puntland iyo reer Hiiraanba iskaashada Hiiraan oo dhan ma wada aha waa qaybta bari waa la yaqaanaa dadka dega ee cadowga argagixisada shabaab iska dhiciyay ee la diriray reer Puntland marka iyo marka reer Hiiraan kulli tab waxaan dhihi lahay aniga cadowga iska kaashada ummidooba